السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال عيد ونكسن عيد مبارك عيد مبارك مرزدحت وعدين لها عيد مبارك عيدان عيدت سنة وط بش برواقو الله ينوغو قرسيو إن شاء الله. فضلنا تاچنا لك وعصب تاي سبسكرايب صار لايك شير كومنت ده سي أنا يديرقلن إنو كون نقطة مقال كان عن كسو قادين هنا حكم كي محكمة إلسو استاجي سادام حسين. سادام حسين نين أتواد قرنيسان عدانها الصومالي soddonkii bishii juun 2004 ayaa Mareykanku waxa ay Saddam Hussein iyo toban kale ee ka tirsanaa xukunkii sare waxa ay ku wareejiyeen maamulkii cusba ee Ciraaq oo sameeyay ra'iisul wasaare Iyad Alabi. Saddam Hussein waxa markii ugu horeysay la soo istaajiyay maxkamadda 1 July ee sanadii 2004 taasi oo markii dambe laga daayay telefishinada Carabta iyo kuwa galbeedkaba. Saddam Hussein oo ay ka muuqato wajigiisa kalsooni badan isagoona ku hadlaya kelimado ay ku dheehan tahay adkaysi geesinimo ayaa wuxuu yiri waxa looga leeyahay in Bush loogu ololeeyo masraxiyadan ee la isoo istaajiyay aniga taasina wax cabsi kama qabo. Isagoo hadalkiisii sidoo kale sii wad ayuu wuxuu yiri aniga halkan uma aaminsani maxkamad ee waxaan u aaminsanahay masraxiyad. wuxuuna ku eedeeyay madaxweyne Bush in uu yahay dambiilihii koowaad. sidoo kale Saddam Hussein wuxuu difaacay galitaankii uu galay Kuwait sanadii 1990 isagoona ku eedeeyay madaxda Kuwait in ay yihiin eeyaal ama kuwa ay ah. waa sida uu hadalka ka yiri maxkamadda ee la soo istaajiyay ee ku macneeyay Saddam Hussein Kuwait in ay yihiin sida kuwa aan u daahirsaneen Carabta dhexdooda. inkastoo markaasi aanay xakinadii ama garyaqaanadii difaacayay Saddam Hussein ku sugneen maxkamadaasi la soo istaajiyay haddana xaaskii Saddam ee ugu weyneed ayaa waxay shaqo gelisay ilaa dhowr xakin oo mustaqbalka u doodi doona Saddam Hussein. asxaabay markale waxa ay leenahay ciid mubaarak ciidan ciid nabad ilaa Allah inoogu gaarsiiyo. fadlan taa channel ku cusub tahay subscribe saar like share comment si anagana ay dhiirigelin inoo noqoto. maasanid.